waxaan ku sugannahay bandhiga carwada tiknoolajiyadda Puntland 2025 waxa dhinacayga midig taagan mid kamid ah maamulka shirkadda Samtel maxamed soo dhawow maanta maxay idin ka dhigan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim faadimo iyo daljir aad u mahadsantiin saaka waxaan joognaa carwada tiknoolajiyadda Puntland waanu ka nahay taabigaliyaha koowaad waa ku faraxsanahay inaanu carwo inta la eeg oo isagu weyn aanu taabigaliye ka nahay Samtelna waxay ku caan baxday meeshii hadba aqoon ama la isku dhaafsanayo wuxuun maaragtay bulshada xutaraya inay taabigaliye ka noqoto inta kadib carwada saaka waxaanu ku soo bandhigaynaa adeegyo cusub aan horay shirkadu aysan maaragtay u baahin oo maanta nasiib u yeeshay inay maaragtay shirkadu baahiso adeegyadaas waxa kamid ah adeeg aanu dhalinyarada ugu talagalnay markaan ogaanay baahida dhalinyarada ay u qabaan inay helaan mobile application ay ka daawan karaan ciyaarihii filmaantii musalladii diinigii iyo maawada caruurta waxaan u sameynay mobile application la yiraahdo Nashaad IPTV application oo applicationkaas oo maaragtay u fududeynaya cid walba inay si fudud ay wixii ay rabteen ku daawato haddii ciyaaraha live-ka ahaan lahayd adduunka dhacaya hadday musallada ahaan lahaayeen hadday aflaanta ahaan lahaayeen hadday arrimaha diinta iyo maaragtay ahaan lahaayeen maawalada ciyaalka iyo wixii la mid ah barnaamijkaas halkaan ku soo bandhignay macmiil kaliya waxa looga baahan yahay inuu maaragtay mobilkiisa dhex galo la soo dego applicationka Nashaad kadibna uu maaragtay ku samaysto lambarkiisa Samtel si fududna uu helo maaragtay dhammaan maaragtay barnaamijyadaas uu rabo inuu daawado soo kale halkaan waxaan ku soo bandhignay suna oo markii ugu horeysay Blocom IPTV oo maaragtay macaamiisheeda fiberka isticmaalaysa aanu ugu talagalnay inaan guryihii iyo xafiisyadii iyo meel walba aanu ugu xirno IPTV gaaraya ilaa 400 oo channel waa IPTV ugu channel iska badan ilaa 400 oo channel oo isku jira dhammaan kanaalada laga daawado ciyaaraha kuwa laga daawado aflaanta kuwa laga daawado musallada kuwa laga daawado maaragtay maawalada caruurta kuwa laga daawado arrimaha diinta dhammaan waxa weeye 400 kanaal bay ka helayaan soo kale halkaan waxaan ku soo bandhignay maanta carwadan ka qayb qaadanaynaa Samtel inay hadda ka daafurtay oo in muddo ah hadda uu ka shaqeynayay Puntland gaar ahaan Garowe fiber optic oo waliba kii wax waaraha sareeyay uguna dambeeyay caalamka oo maanta waxa weeye Garowe laga dhex isticmaalayo carwadan ayaanu maaragtay ku shaacinay oo horena adeeg uu shaqeynayay sidoo kale carwada halkaan ku shaacinay waxaan ku soo bandhignay yadana adeegyo kale oo casri ah Samtel mar walba waxay tahay shirkadii ugu horeysay dhanka tiknoolajiyadda kor u qaaday waa shirkadii ugu horeysay keenta adeega 4G-ga sidoo kale maanta shirkan waxaan kaga dhawaaqnay inaanu nahay shirkadii ugu horeysay adeega 5G keentay Puntland marka ma aan sheegi karo laakiin ilaa 6-7 adeeg oo cusub oo horay macaamiishu u haysan ayaan halkan uga bashaaraynaa inaan saaka u keenay